musharax xildhibaan injineer Salebaan Diiriye Barre oo kamid ah musharaxiinta u sharaxan jagada xildhibaannimo ee baarlamaanka gobolka Sanaag kana sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa booyada biyo macaan gaarsiiyay deegaanada Fadhiyar Dhoomacatuug Shiisha Tuurarka iyo Sincaro badiba dadka ku nool deegaanadaasi ayaa dhamaantoodba si isku mid ah uga mahadnaqay deeqdan biyaha macaan ee la soo gaarsiiyay sidoo kale waxayna ka hadlay deegaanada biyaha la gaarsiiyay qaar kamid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Garadaga ugana sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhamaantoodba sheegay in deegaanadan ay soo mareen ka jiro biyo la'aan baahsanay markay soo gaareen xilligan geeyay biyo kalena waan u baahanahay miyi iyo magaalada waa lagu horman yahay haraad waa isku laayay ilaahay xasan waxana soo gaaray biyo 40 foosto booyada inaad barleeyahay waxa bixiyay baa leeyahay Salebaan Diiriye Barre ilaahay khayr iyo xasanaad ka siiyo dad meeshana biyo la'aan baa ka jirta beesha aad bay u haraadnay biyahaas halkan waa tuulada Shiisha aniguna waxaan ahay maamulihii dugsiga aad iyo aad baa loogu dhibaataysnaa loogu haraadnaa miyiga magaalada ilaahay khayr iyo xasanaad iyo Salebaan Diiriye Barre xildhibaankaas golaha wakiilada waan soo dhaweynaa qalbi furan iyo gacmo wada jira waxaan leenahay nolol xilli anagoo ka wakiila xisbigii wadani gaar ahaan sharaxa gobolka Sanaag Salebaan Diiriye Barre ka sharaxan xisbiga wadani degmada Garadag waxaan ku jirnaa wali biyo dhaamintii anagoo ka soo qaybinay degmada Garadag nawaaxiga tuulooyinkeeda oo aan maanta ka qaybinay Gowso Weyne Fadhiyar Shiisho aan joogno Sincaro aan maanta intaas ku maray waxa aanu doonaynaa inaan soo gaarsiino dadka wixii karaankayaga aanu ka wakiilka nahay iyo wixii aanu hadeer tari karayno wax qabadkuna maaha marka xil qabato adoo aan xil qaban iyo adoo xil qabtay waxa looga baahan yahay inaad ummadda wax u qabato bulshada ku dhaqan tuulada Shiisha runtii waa bulshada ay ka muuqato abaarihii soo maray oo aad saameeyay una baahan wax qabad degdega oo xataa hadeer aan lahayn roob abaartii biyo la'aantii raashin la'aantii ay taagan yihiin xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay ummadan wax soo gaarsiiso si degdeg ilaahay baa dadka wax gaarsiiya laakiin inay wax soo gaarsiiso oo ay mas'uuliyadeeda qabsato mas'uuliyadda ummadan ku leedahay mas'uuliyadeeda qabsato waxaanu ka xildhibaano ahaan golo deegaan iyo baarlamaan ahaan ee ka sharaxan degmada Garadag aanu doonaynaa Salebaan Diiriye Barre oo ka shaqamida biyihii waa noo keenay isaga iyo waxaan u mahadcelinayaa isaga iyo shaqaalihiisii biyaha sidii xildhibaanka biyaha noo keenay Salebaan Diiriye Barre ee wadani ka sharaxan iyo shaqaalaha musharaxiinta ka sharaxan xisbiga ee wada biyahaas oo laga soo dhaamiyay ilad wayna soo gaareen waan marka hore ilaahay baa mahadle barlabaadkana waa ugu mahadcelinaynaa xildhibaanka noo keenay biyaha ilaahay baa mahad iska leh marka waxaanu u mahadcelinaynaa xildhibaanka Salebaan Diiriye Barre ee biyaha dadka u qaybinaya halkan tuurka biyo way soo gaareen aad baa loo cabay ilaah baa mahad leh isagana uu mahad celinayna ilaahay waxaanu ka baryaynaa in raxmad khayr qaba ilaahay inoo keeno hadeer waxaynu joognaa tuurkii aynu ku qaybinay maanta biyihii annagoo kaga wakiila xisbiga wadani musharaxa ka sharaxnay Salebaan Diiriye Barre maanta waxaanu ku qaybinay tuurka tuulooyin badan oo ay kamid degmada Garadag kamid tahay kamid hoos yimaada ayaanu ku qaybinay maanta tananu joogno waa tuurkii dadka ilaahay baa wax gaarsiiya xisbiga wadani dadka uu la qaybsaday baahidii iyo dhibaatadii dadka haysatay uu la qaybsaday si wanaagsan buu biidhaamis wanaagsan baa ku magac dheer Iidla Saalim Maxamed oo tuurbiya waxaanu ka dawladda ka codsanayaa caalamkaba in biyo nala soo gaaro biyo wixii wax noo heli karaya biyo ninkii biyaha soo bixiya Salebaan Diiriye waa mahadsan yahay haddaan nahay tuurbi
waa la ogyahay dee dunida abaar baa ka jirta abaar xun baa ka jirta xoolii way gaabiyeen baahida aad bay u fara badantay dadka iyo adduunyaduba xusbiga wadani wuxuu noo keenay booyad biyo macaan iyo weliba biyo kale oo gowsweynaha waxaanu waa mahadsan yihiin xusbiyada kalena waxaanu doonaynaa dee sidoo kale dowladda iyo dadka islaamkaba inaynu soo caawiyaan magac Salebaan Diiriye waxa jiraba waa la ogyahay jiilaal inay tahay waa la ogyahay abaar dheer inay tahay waa la ogyahay haraad baa jira oo tabaalooyin badan baa jira wixii khayraad waa u baahannahay erikaas marka waxaan leenahay isaguna maaragtay wuu ku mahadsan yahay maaragtay xildhibaankaas waa ku mahadsan yahay qolkiiba maaragtay in badan baan maaragtay ilaahay baa hadda sare aad iyo aad buu ugu fiican yahay ninkaasi haddana waxaan ku sugannahay Turbi waxaanu u joognaa hawlihii biyaha dhaaminta musharaxa sharaxan gobolka Sanaag musharax Salebaan Diiriye Barre iyo musharaxa golaha deegaanka Cabdilaahi Salebaan Boobe mustaqbalka insha Allah noqon doono maayirka degmada Garadag indhoweydba dhammaan tuulooyinka oo dhan ee degmada xukunto gobolka degmada Garadag 23 tuulo xildhibaankaasi waa gaarsiiyay biyaha ilaahay baana dib wax gaarsiin kara dadka aad buu mahadsan yahay musharax Salebaan Diiriye Barre laakiin waxaan la yaabanahay dawladdii dadkan dooratay waxaanu nahay degmada Garadag 23 tuulo hoos yimaada xukuumadda hadda joogtay tii horeba Garadag waa laga soo doortay waliba wax ku soo baxday codda qalbiyada dadku hadda jilicsan dawladdu wax caqabad laga ma hayo taasoo dhaleysana xusbida mucaaradka xusbiga wadani uu mahadsan yahay isagoo dhammaan tuulooyinka Garadag bismillaahir rahmaanir rahiim hadda waxaanu taaganahay Turbi ama loo yaqaan Turciyaale waxaan ku jirnaa hawlihii biyo qaybinta tuulooyinkan aan hadda marnaa waxa ay tuulooyinka kale dheer yihiin iyagu waxaan ahayn macal biyo qaraadha barkada ku yaalay barkadina waa go'an ninaan biyo qaraadha hayn oo biyo macaan hayn waad garanaysaan xaaladda uu ku jiro maanta biyuhu inay yihiin laga maarmaan noloshana waad ogtiin halkan waa qayladhaan biyo wixii kale ba joogaane qayladhaan biyo baan diranaa waa Turciyaale waa qayladhaan biyo baan diranaa marka waxay ku nool yihiin waa barkadina way go'aan nin la sugayo adna yaa sugi baan leeyahay xukuumadda nin la sugayo waxaanu hadda joognaa annagoo ku jirnay maalmahanba biyo dhaamis tuulada Tuur Cabdulle waanu keenay biyo soona gaadheen wixii karaankayga aanu karaynayna ka xisbi wadani ahaan ka musharaxiin ahaan oo nagu hogaaminayo xildhibaanka Salebaan Diiriye Barre oo ka sharaxan baarlamaanka gobolka Sanaag xisbiga wadani waxaanu halkan hadeer maanta aan ku qaybinay biyo annagoo tagi doona tuulooyin kaleba waxa halkan laakiin ka muuqata oo tuulooyinka aan soo marnay ka muuqata in ummadan codkoodii ay ku soo saareen xukuumadda maanta jirta ay ka hagar laadahay oo aanay ogeyn hatta aana meel alaale meel ku sugan tahay iyo ummadaas waxay qabaan faramanaan bay kala taagan yihiin xukuumaddii iyo bulshadii soo dooratay tuulooyinkii soo doortay oo tan aanu joognaa ay ka mid tahay oo ku aanu maray doonaa ay ka mid yihiin ay faramanaan ka taagan yihiin ummadda Ilaahay baa wax gaarsiiya waxaan roob aynu leenahay Ilaahay isagunba wax dadka deeqsiin kara Ilaahay roob baynu ka baryanaa Ilaahay roob hayno shubo xukuumaddana waxaanu leenahay ummaddiina doortay waatan taanu hadda la joogno dadada Xaaji Cabbaas waa gaadhaaye